سياسي محمد أسدونا كم من السرقة صريح حسب معارض كوطني وما توت الرئيس إمجال البور موجود رمية قار كم من الفيدا كهول قال قبل كني أوضل أي واحد سيابك دون جوه الله قاب كله قيب سنة يوسامي قيب سريح لما هذا قلها هو كريد السومالان ومدني كود بيئة لوجه هذا الحياة قبل هذا قلبي السومالان كدي مركي من حين السومال سرس موشعي إن بيش الزحاد سنة كل بعض كوني سالت منك كي قبل مدة السومالان دور الشيء كقولها الدقيقة كي وكذا سياسي محمد أسدونا يوحى وصوب دقيقة قاب كوف ضلوا قيب سندونه حل بعض قلها هو كريد السومالان السووران رنت سكها لين واحد الذي سكمدها marka aniga leega doonayo awdal jooga inaan qaranka Soomaaliland kalgacayl u qaado oo kalgacayl ay galo de xuquuqdaydiina hela xaq xuquuqdan leeyahay baarlamaan oo kaliya ma aha baarlamaanku waa ka maanta taagan dawladda maanta 4.5 ku wax ku qaybsaday dawladda lafteeda ku qaybsaday walla waxaan la isku cawriyeen oo qof kastiba halkiisa uu ka helayo bilaadanku wuxuu bu ku heshiyaa maalin kasti ka hadli mayno waan dulmanahay manihin dad cabanaya manihin dad calaalaya manihin dad mataqaana maanta ujeedo kale ay ka hadlinayso warninka Soomaaliland doonaya quruxdeeda iyo sharafteeda shalay waxbaan ka tanaasulay laba jeer baan waxnu ka tanaasulay marboorama iyadoo wax lagu dhisayo oo maanta mataqaana dadka deegaanka Hargeysa ka bilowga ka shisheeya ay joogan oo dadku aanay miyir haysan iyaan u xiirini oo awdal wax lagu xiiriyay mar labaadna waxbaan ka tanaasulay oo madaxweynaha saaraa oo madaxweyne reer Boorama ayaa joogay labada jeer bareer awdal waxbay ka tanaasuleeno Soomaaliland lafteedu tanaasuleen hadii tanaasulkiina casnimo noqday oo uu noqday wax mataqaana maalintaadii aad ilduuftay noqday de qaranka London baa noqon karay wax yid isaguna la ilduufo ninkii shalay tanaasulay hadduu nin ilduufay noqday de maantana ilduufay محمد السلطان oo kamid ah xisbiga mucaaradka wadani warbaahintu waxa ka weydiisay qaabku arko go'aankii uu xisbiga mucaaradka wadani kalsoonida kala noqday guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa uu kaga jawaabay sida tan siyaasi maxamed wax kamid ah xisbiga mucaaradka wadani diwaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani waxa uu warbaahinta ka sheegay in uu gabiyahaad kalsoonida kala noqday guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland sidoo aragtida go'aanka uu qaatay gudoomiyaha tadarto gudoomiyuhu waa gudoomiye xisbiga gudoomiyaha xisbigu xurmu mudan yahay xog inta aan hayeen ka badan buu hayaa waxa ka dhawaajiyay wax quman ma doorashada dalka ka dhacday doorashadii sidee u dhacday waad ogtihiin sidoo isagu yeelayna waad ogtihiin waxa maanta gudoomiyaha ka hadliyay anuma qabayn wax fudud inuu yahay anigu ma qabo haddaan hoos loo eegin oo xisbiga aan hadalkiisa hoos loo eegin oo aan dib loo eegin de waxay noqonaysaa ma taqaana isdhageysi la'aantii reer awdal buu isaguna ku biiri gudoomiyaha laftiisu sida reer awdal aanu hadlayno in hadalkayga meel looga soo qaadin malaysna dalkaas ku sii socda siyaasadda waxa laga dhusugo doonalka ku dambeeyo qaabka loo qaybsan doono saami qaybsiga golaha wakiilada Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay aad looga hadlayay gobolada galbeedka Soomaaliland taasoo muddo 3 sano ba xal loo laa Mustafa Caraale SAB TV Boorama